بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalayaal qabriga markaynu galno ee adduunyada ka guurno sida Ilaahay iyo rasuulkiisu inoo sheegeen qabrigu laba mid buu noqonayaa inuu qofka u noqdo beer ka mida beeraha jannada iyo inuu noqdo god ka mida godadka naarta wal ciyaadu billah waxaynu tilmaamaynaa waxyaalaha qofka ku keeni kara inuu cadaabul qabri la kulmo wal ciyaadu billah qabriga lagu cadaabo waxaa jira dunuub badan oo sababa qofka in qabriga lagu cadaabo si guud waxaynu dhihi karnaa kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn oo dhan waxay keenaan sabab u noqdaan qofka in la cadaabo intuu qabriga ku jiro gaalnimadu ha ugu horeyso gaalku qabriga uu ku cadaaban yahay hadal la'aan inta dunuub ee kabaa'irana dhammaantood waxay sababi karaan in qofka qabriga lagu cadaabo nabigana calayhi salaatu wasalaam axaadiis kala duwan oo tiro badan baa kaga soo aroortay oo uu tilmaamay siyaalaha kala duwan ee loo cadaabayo dadka qubuurta ku jira dembiyadooda iyadoo loo fiirinayo ribadu waxyaalaha keenay ka mid tahay cadaabul qabriga zinada iyo gogol dhaafu waxyaalaha keenay ka mid tahay cadaabul qabriga dadka cirdigooda iyo sharaftooda la cuno iyo xanta iyo isku dirku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha keena cadaabul qabriga keenuu ka mid yahay kabaa'irka guud ee kala duwan waxyaalaha cadaabul qabriga keena ayay ka mid yihiin qofku marka kabaa'irkiisa iyo dunuubtiisaas waxay sababi kartaa inuu cadaabul qabriga uu la kulmo waxaa kaloo cadaabul qabriga keenaya waajibaadkii oo la dayaco salaadihii oo la dayaco oo qofku uusan waqtigoodii ku ilaalin shuruudoodii ilaalin arkaantoodii ilaalin uusan u dadaalin waxay keenaysaa in qofku cadaabul qabri uu la kulmo wal ciyaadu billah wuxuu si gaara nabigu usii sheegay calayhi salaatu wasalaam salaada falalka oo laga seexdo oo qofka uusan u aaba yeelahayn inuu u tooso iyo inuusan u toosin uusan u aaba yeelahayn waxay ka mid tahay waxyaalaha cadaabul qabriga keena ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah cadaabul qabriga keena qofku inuusan kaadida iska basrinin oo iska hagaajinin oo markuu kaajayo inay ku duulduushay inay gaadhgaadho aan dan ka lahayn oo aan iska nadiifinahayn oo aan iska ilaalinahayn waxyaalaha cadaabul qabriga keena ayay ka mid tahay sidoo kale waxaa jira walaalayaal waxyaalo qofku cadaabul qabriga kaga badbaadayo camalkii xumaa inuu wanaajiyo uu kaga badbaadayaa kabaa'irta inuu ka dheeraado uu kaga badbaadayaa waajibaadka inuu ka soo baxo uu kaga badbaadayaa bal waxaad fiirisaa xadiiska nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamayo qofka marka qabrigiisa la dhigo acmaashii saalixaadka ahayd baa hareeraha ka fadhiisanaysa duu salaada si wacan u ilaalin jiray salaadii dhinac bay ka ilaalinaysaa waxay leedahay xaggayga laga soo geli maayo soonkii uu sida wacan u ilaalin jiray asna dhinac buu ka fadhiyaa wuxuu leeyahay ana xaggayga cadaab uga imaan maayo xajkii sadaqadii quraan akhriskii acmaashiisa saalixa ahayd ee wanaagsanayd ayaa ku hareeraysan camal walibana wuxuu leeyahay xaggayga laga soo geli maayo marka walaalayaal waxaynu iskula dardaarmaynaa si qabrigeenu u noqdo rawda min riyaadi iljanna inaynu insha allahu tacaala ku dadaalno acmaasha ilaahay inagaga badbaadinaya cadaabul qabriga iskana ilaalino iska jirno waxyaalaha inoo sababi doona ama inoo sababi kara cadaabul qabriga wal ciyaadu billah waxaynu u dambaysiinaynaa cadaabul qabriga waxyaalaha ilaahay qofka kaga badbaadinaya waxaa ka mid inuu ilaahay ka baryo ilaahay cadaabul qabriga ka dheereeyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ducooyinku salaada aakhirkeeda akhrin jiray waxaa ka mid ah allahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannama wa min cadaabi annaar min cadaabi jahannama wa min cadaabi alqabri ilaah waxaan kaa magan gelayaa cadaabka jahannama iyo cadaabka qabriga ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku ducaysan jiray culimada salafka waxaa la sheegaa qaar ka midihi ilmuhu hadday salaada ku ilaawaan inay ducada akhriyaan salaada ku celiyay odhan jireen muhiimadda ay leedahay oo ducadaasi ay leedahay allahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannama wa min cadaabi annaar wa acuudu bika min fitnati almasiixi addajaal wa acuudu bika min fitnati almaxya waalmamaat marka dhibtii adduunya tii aakhiraba ilahay waa laga magan gelayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu